بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka ugu horeyso magacayga waa Axmed Maxamed Axmed Dr. Bana kusoo dhawaada qaybteeni janaalkeena YouTube-ka Dr. Bana sidoo kale kusoo dhawaada Facebook page-ka oo ah Dr. Bana lawadaba kusoo dhawaada insha Allah taala maanta insha Allah waxa idin hayaa barnaamij cusub oo aan ugu magac darnay 10 cudur ee ugu caansan magaalada Muqdisho 10 cudur waxay tahay 10 cudur ee badanaa dadka Soomaalida ay ka cawdaan marka la fiiriyo isbitaalada kiisaska ugu badan ee laga helo waa cudurrada marka la fiiriyo 10 cudur ayaa ugu badan insha Allah cudurka maanta oo number 1 aan uga hadli doono cudurka koowaad maanta waxa uga hadli doonaa gastritis-ka ama gastriga ama boog calooleedka qof walba sidoo u yaqaan gastritis waa eray terminology oo loo yaqaan waa eray cilmiyeed ah waa laba eray oo isdul saaran oo ah gastro iyo itis gastro oo macnaheedu Englishkeeda oo noqonayo stomach itis oo macnaheedu tahayna inflammation marka waxa isku wada noqonaysaa gastritis macnaheedu waxay tahay inflammation in the stomach af Soomaaliyiisna waxay tahay waa caabuq ku dhaca caloosha ama gastro ama gaska sida qof walba sidoo u yaqaanaba insha Allah inta barnaamijkan gudihiisa aan ku dhex jirno waxa ka hadli doonaa qodobo dhowr ah oo aad iyo aad muhiim uga ah gaaska qodobka ugu horeeya oo ah sababaha waxyaabaha gaaska sababa oo ilaa 4 qodob ilaa 4 shay ilaa 4 sabab aan uga hadli doona sidoo kale qodobka ugu horeeya waxay tahay inaan ka hadalno sababaha gaaska keena qodobka labaad waxay tahay calaamadaha lagu garto gaaska qodobka saddexaad oo ah talaabooyin aan kugu sii doono oo gaaska ku saabsan insha Allah haddana u sii gudagalno barnaamijkeeni qaybteeni ugu horeyso oo waxa waaye sababaha keena gaaska ilaa iyo 4 sababood ayaa ku sii doonaa sababta ugu horeysa waxay tahay number 1 qaadashada daawooyinka qaar qofka waxay ku sababaysaa gaas ay ku sababaysaa daawooyinka qaar daawooyinkaasna waxa kamid ah sida khaasatan daawooyinka loo yaqaano non steroidal anti inflammatory drugs mid ah paracetamolka iyo aspirinka daawooyinkaas qofka waxay ku sababi kartaa qofka in ay gaaska ku kiciso sidoo kale sababta koowaad waa taas qodobka labaad waxay tahay oo qofka ku sababaysa gaaska in ay calooshiisa ku badato aashitada caloosha waxa ku badin karta ilaa 2 sababood oo ah gaajada muddada dheer iyo sidoo kale in uu leeyahay cuduro ku sababi karto in uu caloosha ku badato gaaska qodobka saddexaad oo ah alcoholism ama alcohol cabid iyadana waxay kamid tahay waxyaabaha aad iyo aad sababta u ah gaaska sidoo kale qodobka afaraad waxay tahay cuntada qofka in uu isticmaalo cuntooyinka dhanaanka ah cuntooyinka khamiirka leh iyo cuntooyinka dhacayba intaan cuntooyin qofka waxay ugu sababi kartaa gaas qodobka shanaad oo ah sigaar cabida iyadana waxay kamid tahay waxyaabaha gaaska sababa si waliba kuwa ugu sii daran ay sababi kartaa insha Allah hadda inta waxa ugu baxnay sababaha waxa galina haddana calaamadaha qofka laga helo oo gaaska qaba calaamada ugu horeysa oo ah calool xanuun qofka in uu dareemo calool xanuun khaasatan qaybta ugu horeyso ee caloosh in uu ka dareemo xanuun sidoo kale calaamada labaad ee qofka lagu arki karo waxay tahay dibiryo iyo daaco in uu isku arko qofka dibirkiisa bata iyo daacyadiisa ay fara badan tahay waxay kamid tahay astaamaha lagu garto gaaska sidoo kale waxyaabaha gaaska lagu garto waxa kamid ah qofka in uu carabka kaga soo baxaan nabro sidoo kale afka oo dhan ay khaleel ka naqdaan waxay kamid tahay astaamaha lagu garto sidoo kale waxyaabaha gaaska lagu garto waxa kamid ah labalabo ama mantag iidan waxay aad iyo aad waxa kamid tahay sababaha astaamaha lagu garto gaaska siiba qofka markuu arko cuntooyinka markuu arko siiba cuntooyinka ay ku badan tahay saliida uu dareemo mantag waxay kamid tahay astaamaha lagu garto gaaska sidoo kale gaaska waxa lagu garan karaa qofka in uu ka dareemo korhur iyo sidoo kale inuu ka dareemo cagaha iyo inuu ka dareemo calaacalaha hur inuu ka dareemo hurkaas macnaha waxay astaan u tahay qofka in uu qabo cudurka la yiraahdo gaaska calaamada lixaad ee qofka uu dareemi karo waa hurdo xumo in uu dareemo ama in uu dareemo hurdada dhexdeeda uu ku dhex dareemo qarow khaasatan qofka marka hurdada laga soo kiciyo in uu dareemo waxyaabahaas hurdo la'aanta iyo qarowga waxay kamid tahay astaamaha lagu garto gaaska sidoo kale gaaska waxa lagu garan karaa wadna garaac zaa'id ah xitaa heer qofka uu maleeyo in uu qabo wadna xanuun in uu qabo balse ma qaba heerka gaaskiisa ayaa aad iyo aad u sareeyo
wadna garaacaasna waxay ka mid tahay calaamadaha lagu garto. sidoo kale qodobka 8aad ama astaanta 8aad ee qofka lagu garan karo waa laabjeex. laabjeex qofka hadduu isku arko macnaheedu waxay tahay qofkaas inuu gaas qaba. sidoo kale qodobka ugu dambeeya oo ah qodobka 9aad oo ah warwareer ama qofka inuu miisaanka jirkiisa uu ka dhumo, macnaha inuu isxakameey waayo inuu dhadhaco iyo waxyaabahaas oo kale waxay ka mid tahay astaamaha lagu garto gaaska. intaas waxaa ka soo hadalnay sababaha gaaska keena iyo calaamadihiisa. waxaa noo dhiman talada oo ah ilaa 7 talo aan ku sii doono, balse talada ka hor waxaa ku sheegi doonaa bakteeriya sababto gaaska. gaaska waxaa sababto bakteeriya loo yaqaano Helicobacter pylori. Helicobacter pylori waa bakteeriya sababta gaaska. insha Allah haddana waxaa galaynaa talooyinkii qaybtii ugu dambeeyay aan kugu sii doono ilaa 7 talo ee ku saabsan gaaska. talada ugu horeysa oo ah cunto bedelid inaad la imaadid. cunto bedelid oo cuntada jadwalkii hore aad ku cuni jirtay iyo waxyaabihii aad cuni jirtay waa in aad bedeshaa. qodobka ama talada labaad waxay tahay in oo daawadaada dhakhtarka sidoo kuu siiyay in aad u qaadato. daawooyinka dhakhtarka sidoo kugu qoray in aad u qaadato. talada saddexaad waxay tahay insha Allah in aad ka fogaatid, taladan waa talo aad iyo aad u muhiim ah, in aad ka fogaatid cuntooyinka qaar sida cuntooyinka khamiirka leh, cuntooyinka dhandhanaanka ah iyo sidoo kale cuntooyinka gisicaysan. waxyaabahaas way aad iyo aad ay ugu daran tahay dadka gaaska qaba. sidoo kale waa qodob aad iyo aad u muhiimsan in aad iska ilaaliso bisbaaska. bisbaaska waa mid aad iyo aad ugu daran dadka qaba gaaska. dadka qaar waxay aaminsan yihiin bisbaaska in la joojin karo, laakiin waa la joojin karaa sababtoo ah caafimaadkaaga ayaa ka muhiimsan bisbaaskaas. wax walba oo naftaada khatar ku keeni karo waa inaad iska joojisaa. marka in aad cuntada ka hor ama jiifka ka hor in aad qaadato cunto muddo 3 saac ka hor. tusaale kale cashadaada markaa jiifanaysid ama qadada ka hor, markaa qadaysid ama aad cashaysid calooshaada oo buuxda inaad isla markii jiifatid ma ahan wax gaaska u fiican, balse waxaa fiican cunto markaa cuntid ilaa iyo muddo 3 saac ka hor. cuntada 3 saac kadib aan dhahay inaad seexato. cuntada markaa cuntid 3 saac kadib iska seexo, taas okay waay. sidoo kale dadka gaaska qabin hataa sidoo kale taladan aad iyo aad ayay muhiim u tahay in aad iska ilaaliso cuntooyinkaas hor ku soo xusnay oo dhammaantooda. sidoo kale waxaa jirto dadka qaar ee badanaa Soomaalida aad u sameeyaan oo ah caano cabida. caanada sidoo kale waxay aad iyo aad u yareysaa aashitada caloosha ku jirta, waana aad iyo muhiim ayay tahay. sidoo kale caano cabidaas qofka markuu cabo caanaha wuxuu aashitada calooshiisa ku jirta ayaa yaraanayso, balse taxadar caanaha aad cabayso inaysan ahaanin caano dhanaan ah. sidoo kale waxaa kor ku soo sheegnay qodobkeenii hore cuntooyinka dhanaanka khamiir kale waxyaabaas inaad iska joojisid. tana markii dhanaanka caanaha dhanaanka laguma ogole, balse caanahayinkan kale oo caadiga waad cabi kartaa. gaaskana aad iyo aad ayay muhiim ugu tahay. sidoo kale waa qodobkan hadda soo socda waa qodob aad iyo aad u muhiim ah in aad cuntooyinka levelka ku cunaysay in aad ka taxadirto. tusaale kale waxaa la diidayaa cuntada in aad qaadato baahi. cuntada markaa qaadanaysid baahi darteed wax badan inaad qaadatid waa qodob aad aad loogu haboon yahay. waxa la ogol yahay waxay tahay cuntada in ka mid ah darag zayd ah inaanan la imaanin. tan kale waxay tahay baahi zayd ah inaanan dareemin. baahida sidoo kale qofka gaas qabo aad aad ay ugu daran tahay baahida. sidoo kale waxay u daran tahay daraga badanna way u daran tahay. marka taxadar yeelo, marka xoogaa aad dareentidba in wax yar qaado, waxaasna aysan ka badan wax yar qaado, haddana muddo kadib wax kala qaado, muddo kadib wax kala qaado si aad caafimaadkaaga ugu taxadirid. midkan waa qodob aad iyo aad muhiim u ah. dadka qaar markay gaas qabo waxaa lagu arkaa mantag dhiigooda mantag inuu soo raaco dhiig mantagda inuu soo raaco dhiig iyo sidoo kale saxarada inay soo raacdo dhiig. marka dadka qaar waxay u maleeyaan markay saas isku arkaan in ay markaas caafimaad helayaan. maya, taxadar. taas waa markay ugu daran tahay markay ugu daran tahay waa dhiig markaa isku aragtid ama mantaga ay soo raacdo ama saxarada ay soo raacdo, isla markii waxaa laga baahan yahay in aad tagtid goobta caafimaad ee kugu dhow, sababtoo waa halis. waxaa laga yaabaa xidid in ay caloosha ku dhex furmo waana sababi karto dhimasho, aadna ku dhiman kartid dhiig bax darteeda. marka ka taxadir. dhiigga marka la isku arko oo saxarada iyo mantaga soo raacayo waa mid halis ah in laga taxadirana u baahan. 10kan cudur ay idin soo gudbin doono oo maanta aan ka hadlay cudurka ugu horeeya oo gaaska noo dhiman 9ka. marka cashirkan waxaa noo soo diyaariyay الدكتور أبو بكر محدين حاج حسين أسيقي أيا نو سو دياري مركا أسيقن وحا ليهي دكتورة جزاك الله خيرا وحا مان دادك ugu faa'iideena waa wax adiga noo soo diyaarisay. aad iyo aad ayaa kaaga mahad celinaa. sidoo kale dadkana daawanaya beejkeena ku xiran ayagana aad iyo aad ayaa ugu mahad celinaya daawashada iyo la socodka iyo maqnaashaha muddada yar aan ka maqnayna la soo xiriiro. aad iyo aad ayaa ugu mahadsantihiin.